laba nin oo ka tirsan shaqaalaha Badar ayaa dil isugu geystay magaalada Og cabaar 9 iyo barkii subaxnimo. marxuumka geeriyooday oo la oran jiray Faarax Ismaan ayaa saaka iltoogaasho ah lagu dilay. marxuumka oo ka mid ahaa shaqaalaha Badar leerka waxaana dilkaas geystay gacan ku dhiigle Faarax Maxamed Cilmi oo isna ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda Badar. qabashada gacan ku dhiiglahaas waxaa ka qayb qaatay oo gacanta ku soo dhigay ciidanka booliiska ee degmada Og waxaana qabashada gacan ku dhiiglaha dilkaas geystay loo dhaadhay xarunta gobolka Saraar magaala madaxdiisa Caynabo. ciidanka booliiska oo isugu muujiyay hawlgallo aad u ballaaran kuna guuleystay qabashada gacan ku dhiiglaha. taliyaha saldhigga degmada Og Kabtan Yaasiin Bile ayaa ka xog waramay sida dilku u dhacay iyo sida ay u soo qabteen gacan ku dhiiglaha dilkaas geystay. waxa ka dhacay saaka shil nin baa ku dhintay ninka xabad baa ku dhacday waa la dilay ninka waanu qabanay ilaahay waanu u guuleeyay qabashadiisii waa xiran yahay waxaanu isu dhaafinay gobolka ninkiina dhakhtar baa loola cararay dhaawac ahaan information kasaanu ku helay markii kamana waa dhintay allah u naxariisto baan leenahay lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ehelkii uu ka geeriyoodana waxaanu ilaahay uga bareenaa samiriye iimaaninu ka siiyay. waxaa kaloo dhinaca ammaanka ka qayb laxaad ka qaatay maamulka degmada Og uguna horeeyo maayir ku-xigeenka degmada Og Saalax Cabdilaahi Guray iyo xogeeyaha degmada Og Axmed Cali Nuur oo ugu horeyntii tacsi u diray marxuumka Allah u naxariistay eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyagoo ku dheeraaday in ammaanka la ilaaliyo oo ay ilaaliyaan labada beelood ee walaalaha ee wada degaa ee shaqaaqadu dhex martay. halka saaka waxa ka dhacay shil waa Og geeriyeysanahay nin baa dhintay dhaawac baa lagu qaaday barco ku dhintay ninkii gacanta lahaana waa la qabtay jeelka Caynabo ku xidhan yahay waa dhacdo ilaahay keenay waan ku sanaysanahay marka hore beelaha wada degan deegaanka waxaa laga codsanayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada sugaan iyadoo aanay reernimo iyo shakhsiyo waxa weeye dad wanaagsan oo walaalaa oo aan ahayn reer hebel iyo reer Oga iyagana waxaan leenahay si reer Oga ay u ahaydeen u ahaada amniga aynu la shaqeyno ciidamada amniga inaga ciidana haddii aynu nahay beesha iyo deegaanka inaga ciidana wixii aynu qaban weyno ciidanku ma qabanayo aan kala shaqeyno annaguna diyaar baanu nahay inaanu amniga ka shaqeyno ka beelaha ka shakhsiyaadka iyo ka degmada mid walba waxaan ku soo Yaasiin Saxaaf TV qaranka Soomaaliland magaalada Og.